dhinaca kale isla warbaahinta Gubaa TV ayaad naga daawanaysaan daawadayaal sida la socotaan Ethiopia kulan heer qaran ayaa ka furmay maanta waxa ka qayb galay ilaa 4,000 oo shakhsi sida dawladda Ethiopia ay sheegtay waxaana madasha wada hadalka qaran ee Ethiopia waxa mid muddo dheer la sugayay si rasmi ah ayaa maanta ugu furmay Addis Ababa 4,000 ayaa ka qayb galaya ilaa 30 maalmoodna waxa la sheegay in ka doodi doonaan arrimaha siyaasadeed ee asaasiga ah dalka Ethiopia iyadoo wali ay jiraan dhaliilo dhinaca xisbiyada mucaaradka imaanaya madashan waxa soo qaban qaabiyay guddiga wada hadalka qaran ee Ethiopia ka qaybgalayaasha waxa loo qaybiyay kooxo ilaa 500 qof ah مهما كانت القضايا التي نختلف بشأنها يجب أن تحل عبر الحوار وألا تتحول إلى أداة بيد wax walba oo naga dhaxeeyo waa inaynu ku dhamaysanaa qaabka wada hadalka wax walba oo sidoo kale jirana oo aynu isku haynana waxaynu ka fikreynaa inagoo danta qaranka eegayna sababtoo ah danta gaarka way dhamaataa danta qarankana mar walba waa jira si ay uga doodaan ajandiyaal ee guddigu sheegay inuu ka dhashay wadatashi heer qaran ah oo ay ka qayb galeen 100,000 oo muwaadiniin ah furitaanka madasha gudoomiyaha guddiga wada hadalka qaranka Ethiopia Professor Mesfin Araya ayaa ugu baaqay ka qaybgalayaashu inay dhinac iska dhigaan shucuurta isla mar ahaantaana mudnaanta ay siiyaan danta qaranka Ethiopia ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa isna ka hadlay munaasabada مهما كانت القضايا التي نختلف بشأنها يجب أن تحل عبر الحوار وألا تتحول إلى أداة بيد قوى خارجية تسعى لحرمان إثيوبيا من حقوقها السيادية ويجب تغليب مصلحة الوطن على المصالح الفردية فالأوطان تبقى والأفراد للحل وعلينا تجاوز أخطاء الماضي واستقطاب هذا المؤتمر لبناء الأمة الإثيوبية Ethiopia ay u baahan tahay isla markaana ay tahay mid sii jiraysa hadaba waxa kulankaasi Ethiopia uu dhacaya xilli arimaha geeska Afrika aad iyo aad loo hadalay Ethiopia ay ka mid tahay dhinacyada aadka u dareynaya in badda cas oo iminka xiisadaha ugu badan gobolka ay ka jiraan in iyadu saameyn ku yeelato